الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ambasador cali siciid fiqi mas-uuliyiin iyo qaybo shalduban bulshada magaalada baydhabo iyo salaada ciidul adxa ka tukudi barxadda madaxtooyada ee magaalada baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis laftagaren iyo dhambaal hambaliye andari guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed maynuusan ka hambaliyay munaasabadda maalinta ciidda ilaahayaan ku rajay hantii sanadkun sanadkayuusa ka deersi bashbash barwaaqe iyo amni iyo dowladnimo horle mas-uuliyiintii salaada oogay ousa ku mid tahay wasiirka wasaaradda arrimo diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi baardheere oo warbaahinta dowladda koonfur galbeed salaada kureed la hadali ma isu ku hadalay ahmiyadda iyo geekaleta iyo muhiimadda iyo xambaarsanta maydhinaga kale usa tilmaamay anti geekayeeta maalin ciideed dhambaal xambalye iyo andari dhammaan shacabka soomaaliyeed qofkii hadda ilaahay u suurtageliyey hadda wixii ka horreeyey qofkii hadda la yimid udxiyada waa uun sadaqo oo sadaqaad ka mid ah ama hilib ilmihiis iska siistay haddii hadda wixii ka dambeeyo waxaa laga raba waxaa waaye inaad udxiyadii la qalo ilaahay subxaana wa tacaala ayadoo loogu dhowaanayo maanta lama aan shardigeed maanta berri ilaa berri dambe ayaamu tashriiqa la yidhaahdaa sida khadiibku uu noo sheegay walafdal inay maxaan ku idhaahdaa bacda salaad noqoto walafdal inaysan habeen noqonin sida la rabana waxaa waaye kow maxaa la yidhaahdaa halkii qof maxaa wax ka gudi karo qofkii waxaa waaye hal neef oo maxaa la yidhahdaa asagii ehelkiisa oo ari ah toddobadii qofood ama oo meel isla degan hal neef oo lo ah ama hal neef oo geel ah marka masaakiinta iyo maxaa la yidhaahdaa khaasatan walaalaheenna reer afgooye ilaahay subxaana wa tacaala maanta inay ayagana maxaan ku idhahdaa sida dadka kale ay ahaadaan aan ugu fiicnaan lahayd ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu keenana raalligaan ku nahay marka ilaahay waxaan u weydiinaynaa subxaana wa tacaala ayagana inuu culeyska uu ka dulqaado oo ilaahay fadligan maalintan weyn oo maalinka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay oo uu maxaa la yidhaahdaa nin yahuudiya wuxuu u yimid ninka la yidhaahdo cumar ibn khadaab markaas wuxuu ku yidhi aayad ku jirta qur-aankiin haddii annaga nagu soo degi lahayd maalintaas waxaan ka dhigan lahayn uu yidhi ciid markaas yidhi aya aayatan haada aayadee waa yidhi aayaddaas wuxuu yidhi في سورة محل هذا المائدة في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا marka aayadaas oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhammaystiray uu leeyahay maanta ayaan waxaan idiin dhammaystiray diintiina waxaana raalli idinkaga noqday islaam diin ahaan diinta islaamka marka wuxuu yidhi maalintaas meeshay ku soo degtay saacadday soo degtaa ma oguu dhahay iyo mawduc ay ku soo degtay maalinta carafo ay soo degtay waa maalinta ilaahay subxaana wa tacaala maalin ilaahay uu sameeyey maalinta ugu fadliga badan waa meeshay ku soo degtaan ogahay maalintaas laga soo bilaabo marka ciid maahan uu dhahay maalinta carafo laga soo bilaabo ilaa 3 maalmood ka dambayso adi hal mar leeba sheegaysaa intaas ciid na looga dhigay marka jazaakum allahu khayr guutaan degmooyinka dalka iyo salaada ciidul adxa la ka tukudi masaajidada sababa la xiriira ku horseedo ku cudurka COVID-19 iyadoon horaan lanka tukuday barxadooyinka iyo waliba garoomada banoonoga ee kiyaala degmooyinka dalka dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada ku jira dalka ay ku taxdirayaan badqabka ilaalinta caafimaadka shacabka ya tilmaami intii salaado ciidda la ka tukudo masaajidada Faisal Maxamed Isaan TV-ga iyo raadiyaha dowladda koonfur galbeed Baydhabo